السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد صاحب الموقال عصب هديت كأسب تاجنا الكسب سكراب سارقن بلا الكفراء سيكو قصر دعان موقال والبهال كان سوقلينه هديت هورينا اللي جوكتنا موقال كلايك سر شير جري واتهي موقال كنا لايك سارتو وحي إنه سعيد يسايا يعني إنه موقال كمل سر وجار ودبنا ودابضو marka hadii aad channel ku cusubtahay subscribe inoo sar hadii aad horeen la joogtana muuqaalkana like sarta ka ilaabin muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa Sheikh Umal ayaa waxa uu yimid nin Christian oo gaal ah Sheikh Umal wuxuu yiri waqti aan dugtay salaada casr masaajidka qaybta sar markaan ku dugtay waxa ii yimid oo yiri nin Christian oo gaal ah markaas wuxuu yiri Sheikh waxa la soo sheegay inaad dadka kala xukunto waxa jiro yiri ninka Christianka oo gaalka ahaa nin Soomaali ayaa jiro oo ganacsi ina dhaxmaray ninkaasi ayaa raba inaad na xukunto wixii diinta islaamka qabto aad nagu xukunto wax kasto aad soo saartan raali baan ku ahay oo yiri ninka Christianka asigoo u dacwoonaya Sheikh Umal markaas Sheikh Umal wuxuu wacay ninkii muslimka Soomaaliga ayuu wacay markaas wuxuu yiri waxa ila jooga nin Christian oo gaal ah oo adigu ka dacwoonaya wuxuu leeyahay ninkaas ayaan ka dacwoonaya waxaana rabaa inaad nagu xukunto diinta waxay qabto diinta islaamka waxay qabto inaad nagu xukunto ayaan rabaa uu leeyahay kaali liiri ninkii Soomaaliga ahaa markaas asigana wuxuu yiri anigu diyaar uma ihi sheekh anigu diyaar uma ihi ninkaasi ha u dacwoodo maxkamadooyinka dalka ama maxkamadooyinka wadankaas aan joogno ka jira ha u dacwoodo hadaba bal fiiri nin la leh nin Christian oo gaal ah ayaa leh kaalay diinta islaamka diinta adigu aad aaminsan tahay oo aad sheegato islaamnimada aan u xukuntano wixii xukun ka soo baxa ayaan ku qanacsan ay u leeyahay gaalka kii kale oo muslimka Soomaaliga wuxuu leeyahay anigu diyaar uma ihi sheekh ninkaas u dacwoodo maxkamadooyinka kale oo gaalada hadaba fiiri iimaankiisa qofkaas meeshu uu marayo qofkii gaalka ayaa leh diinta islaamka waxay ka qabto xukunkan ayaan ku qanacaya kii oo muslimka Soomaaliga wuxuu leeyahay ninkaas uu xukuntago maxkamadooyinka kale hadaba saaxiibada muuqaalkaas la daaban doona Sheikh Umal asoo inoo faahfaahinaya bal ku soo dhawow daabasho wacan hadii aad horena la joogtin muuqaalka like sarta ka ilaabin waa tahay waxa isla daawan doonaa muhaadarada Sheikh Umal daabasho wacan xukunka Ilaahay waa waadix tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed ruuxa mu'minka inta karaankaaga hatta hadii nidaamyada iyo dawladaha iyo maxkamadaha iyo andimada meesha ka jirtay ayna shariicada Ilaahay xukumaynin adiga shakhsiyan wixii kula soo gudboodaana shariicada la culimada u tag diintan uu kala saarade wax la yaab la waay maalin dhaweyd waxa yimid nin gaal ah oo dadkan dalka daga ah oo Christian baan ahay ugu yiri masaajidka qaybta kore anoo casar ku tukaday buu yimid wuxuu ka dacwoonayaa nin Soomaali ah oo ganacsi dhaxmaray ayuu dacwo ka yahay sheekh waxa la isoo ka sheegay inaad dadka kala saarto ninkaas aan rabo inaan kala saarto adu maxaa tahay Christian baana oo waxaad rabtaa anigoo wadaad muslima inaan kala saaro oo xukunkana raali ku tahaana kala saar waxaad soo saartana raali baan ku ah ikii Soomaaliga baan waxay warni Christian ila joogo dacwo ka oo ka dacwoonahay aan idin kala saaray imow sheekh diyaaruma iibur diyaarumay qisadii aayada hore alam tara ila alladheena yaz'umuna ay kutimid oo kale u egtahay munaafiq reer Madiino islaamnimo sheeganay iyo nin yahuudiya isqabtay yahuudigi wuxuu leeyahay ina keen maxamed aan u tagnay ayna kala saaree kii islaamnimada sheeganaya munaafiqana wuxuu leeyahay ma amid falfallow oo magaalada joogo kaahin ahaa ninka inooge anigu maxamed aadi maaye laana wuxuu og yahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu laaluushna qaadanaynin cadaaladna ku kala saarayo tayib iimaanku aaway marka wuxuu leeyahay maxkamadaha dawladda ha aado war isagoo gaala shariicada Ilaahay raali ku ah islaamnimada sheeganaysa kaalay hal idin kala saaree adoo heli kara shariicada islaamka iyo cid in ku kala saartay heli kara si fududna uu kala bixi karay inaad maxkamada gaala aadood halka xukunkaaga geysato waa masaladan hadda ka hadlayno